وسولو صاحب بيال وحنا بقول كان إنا كنت لساقو كلن كي مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود هي إسماعيل عمر جيلي مقالة جيبوتي دلك عاصمة دلك جيبوتي يا رب الله ياب له وهالسكوا قرن مدينة هي أمة الصوماليات هي شعب الصوماليات با هالس وين كوا وهالكاس اللغة أرنصدي أيام ربائنا إذا لو ذاقو وحندول استاجي دونا كلن كاسي قضب دورة لغة ولا هذا طبعا لكن هل قضب ayaa ugu halis badan oo la xiriira dalab Mareykanka ka yimid oo Ismaaciil Cumar Geele loo soo maray Djibouti-na hore ay u diiday Ismaaciil Cumar Geele hore uu u diiday oo Mareykanka uu uga diiday Soomaaliya ayuuna ku cadaadinayaa inay yeelaan oo Xasan Sheekh Maxamuud uu qaato waa arin halis badan ummadeena Soomaaliyeed halis ku ah waa arin kale oo run ahaantii uga sii daranba kooxihii argagixisada qodobkaasi waan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kale toraba mid iyo labo inaan ka dul istaago booqashadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu ku tagayay magaalada Laascaanood ee caasimadda maamulka SSC Khartoum xogo cusub oo ka soo kordhay saf booqashadaas oo u muuqata in ay baaqatay iyo arrimo la yaab leh oo ka dambeeya booqashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre in ka badan 30 xildhibaan oo ka soo jeeda gobolada waqooyi ayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha maanta ku booqatay waxayna ugu hanjabeen mooshin xilka qaadisa waa sida xoguhu ay tibaaxayaan guddigii hordhaca u ahaa safarka ra'iisul wasaaraha waa la baajiyay oo waxaa lagu wargeliyay in ilaa iyo amar dambe ay sugaan oo dib u dhac ku imaaday booqashadoodii arrimahan ayaa lala xiriirinayaa xildhibaano ka soo jeeda gobolada waqooyi oo ku cadaadinaya ra'iisul wasaaraha inuusan tagin magaalada Laascaanood arrimo la xiriira isqaqabsiga SSC Khartoum iyo Somaliland waa arrimo la yaab leh in ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed xildhibaano yar oo matalaad shacab haysanin oo dad ay matalaad jirin oo dal ay matalaad jirin oo waxba gacan ku haynin oo cid soo dooratay jirin in isaga oo matalaya bulshada ugu badan bulshada Soomaaliyeed ama ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed ba ay dhahaan ma tagi kartid mid hebla oo farta loogu fiiqo waliba loo gilgilo la yiraahdo carab waa ayaan daro inta leeg iyadana waa dul istaagi doonaa xildhibaanadaasi deegaanada ay ka soo jeedaan safarka u muuqda in la baajiyay iyo sidoo kale to arrimo la yaab leh Muqdisho ka taagan ayaa idin wadaagi doonaa haddii aan layno soo dhawaada muuqaalka la isaan aragtidina nugula wadaaga qaybta commentiga aynu ku bilownay shalay waxaan ogsoonay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu booqday oo booqasho rasmi uu ku tagay dalka Djibouti ayna halkaas ku soo dhaweeyeen madaxda dalka Djibouti ugu horeeyo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele kulan ayaa la wada qaatay qodobo dhowr ah ayaa looga wada hadlay oo koow ka tahay xoojinta xiriirka Djibouti iyo Soomaaliya iyo sidoo kale mahad celin oo madaxweynuhu uu la tagay in Djibouti ay ka qaadato run ahaantii qaab firfircooni leh dib u dhiskii Soomaaliya iyo sidoo kale xasilinta oo ciidamada Djibouti ay ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya waxa intaas sii dheer Ismaaciil Cumar Geele uu yeeray Xasan wuxuuna ugu yeeray hal arin oo isagu hore uu diiday halka arin waxay tahay Mareykanka ayaa Djibouti ka dalbaday bilo ka hor in saldhigyo laga siiyo dalka Djibouti oo uu ka weerar uu kaga qaado xuutiyiinta Yemen uu weerar kaga qaado wuxuu ka codsaday Ismaaciil Cumar Geele Mareykanku in lacag malaayiin oo siinayo saldhigyo waaweyn oo weerarka uu ka qaadana inay siiyaan oo dalka Djibouti uu siiyo Ismaaciil Cumar Geele wuxuu yiri maya uu ka cudur daartay wuxuu yiri aniga dalkayda xuuti looga duuli maayo dal kale looga duuli maayo cid looga duulaya ma jiro arintaana shacabkaydu ma xamili karaan dal yar shacab yar ayaan haystaa oo amni waxa kaliya ay haystaan waa amni wax kale ay haystaan ma jiro sidaas awgeed ma yeeli kara buu yiri Ismaaciil Cumar Geele Mareykanku marka waxa la yiraahdaa sidaatay waa yahay Soomaaliya nala qabo Xasan Sheekh Maxamuud nala qabo safarkan marka ra'iisul wasaaraha Xamse ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay magaalada Djibouti dalka Djibouti caasimadda dalka Djibouti wuxuu salkaba ku hayay waxaan kale mahad celin iyo warqadan hadda filla Soomaaliya la soo galiyay adkeynta xiriirka xoojinta baraaqda waxba kama jiro arrin baa hoosta ka hoos duugan si sibqay u soo baxday waa arrin hadda taagan weeye siyaasiyiin badanna waa ka hadleen ummadda Soomaaliyeedna kulay inta badan ee hadda u dhunduleesha siyaasadda Soomaaliya qaybo kamid ah inay ogyihiin waa suurtagal laakiin waa xog cusub oo ka soo kordhay weeye safarka iyo kulankii madaxweyne Xasan iyo Ismaaciil Cumar Geele ay magaalada Djibouti ee caasimadda dalkaasi ay ku wada qaateen
waxaa laga arrinsaday marka Ismaaciil Cumar Geelle uu ku riixaya Xasan inuu aqbalo oo saldhigyo Mareykanka laga siiyo Soomaaliya gudaheeda ay ka duulaan markii saldhigyada leeyahay hadda Mareykanka saldhigyo waa ku leeyahay laakiin saldhigyadu kuwa ma saldhigyadu waa kuwa maraakiibta dagaalka diyaaradaha dagaalka wax walba oo kimika ah hubka kimikada qoryaha waaweyn waxaasoo dhan buu Mareykanku keensanaya waa adigu xeerada military ee Mareykanka dhexdiisa ku taalo kale ayuu ka rabaa xiriyo badan abu ka rabaa Soomaaliya dhexdeeda marka infantrygiisina meeshuu keenaya marka adiga maxaa faa'iido kuwa maxaa se khasaara haddii saldhigyo la siiyo oo sida Mareykanku halkan kaga duulo xuutiyiinta Yemen maxaa dhibaato ah oo inaga maxaa se faa'iido ah faa'iido horta inaga inoogu jiro Soomaaliya faa'iido ugu jirto waxa dhibaato ah inay ka dhaxli ma jiro sababtoo ah hubka kimikada la isku adeegsan xuutiyiintuna gantaalada ay ka tuuraan Yemen ayay intay 5 dawladood sii kormariyaan bay Israa'iil halka kaga duqeynayaan berita marka gantaalada ay soo tuuraan adoo kugu soo dhaxdhacaya badaadu ku dhacaya xeebtaadu ku dhacaya shacabkaada masaakiintu ku dhacaya guryaha dabaqyadu ku dhacaya magaaladaadu burburinaya waxay noqonaysaa meel Soomaaliya laga kala cararay oo lagu kala caro lagu kala guuro hadda in baad waa isla joogjoognaay ayay Soomaaliya noqonaysaa taasay noqonaysaa waa inaad ku xisaabtanto markaan oo ummadda haddaan adiga Soomaali muwaadin tahay aad ogsoonaato way mar haddii lagu yiraahdo aniga dhulka waxaan rabaa inaan saldhigaysiiso aan dhul hebel u duulo aan ku duulo meeshaadu waa furin dagaal bay noqonaysaa furin dagaal yaa ku dagaalamaya haddana laba Soomaaliya kuma dagaalamaysa dawladda waaweyn baa ku dagaalamaya Mareykan Ingiriis baa la socda Canada la socota wadamo waaweyn baa la socda quwado waaweyn saaxiibadiisa NATO dhanba soo qaadanaya waxa weeye hubkii adduunka oo dhan meesha la isku keenaya waxaas la isku harqinaya xuutiyiintuna way hubaysan yihiin qalab waa u dhameystiraya Iran baa hubaynaysa wadamo waaweyn baa hubaynaya oo hoosta ka siinaya hubayagana nooc walba haystaan gatalada aragtay maraakiibta dagaalka Mareykanka ay ku weerareen baa adiga lagu soo weeraraya maxaa diri karnaa marka waa qorshe halis badan ummadda Soomaaliyeedna aysan xadili karin run ahaantii lama garanayo Xasan inuu aqbali doono laakiin Ismaaciil Cumar Geelle ku riixaya baa leeyay Xasan inuu arinta aqbalo oo saldhigyo Mareykanka uu siiyo waynu weegi doonaa sida ku soo dhamaato iyo sida Xasan iyo go'aanada uu ka qaato ama uu ku aqbalo waynu weegi doonaa haddii alla idmo dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre booqashadii uu ku tagayay magaalada Laascaanood warbaa ka soo noqday in ka badan 30 xildhibaan oo la yiri gobolada waqooyi ka soo jeedaan ayaa ugu tagay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxayna ugu hanjabeen in mooshin xilka qaadis ay ka keenayaan hadduu tago magaalada Laascaan artag bal wiil bal adu ka waran xildhibaan shacabaan soo dooranin cid soo dooratay lahayn matalaad haysanin shacab aan haysanin dad aan haysanin wax ka dambeeyo wax aqbalay wax ogoltoon aan haysanin haddana kugu maamulay adiga marti kuwa haddana kugu maamulaya xafiiskaadi ka war waa ayaan darada dalkeena maanta haysataa ayaan darada maanta dalkeena haysataa waa mid ah Xamse waxaa la yiri artag guddigii hordhaca u ahaa safarkiisa booqasho ee magaalada Laascaanood waxaa lagu wargeliyay in la baajiyay maalinta bariya la filayay inay tagaan ma tagi kartaan jooga la yiri ilaa yaamar dambe waxba jira la yiri laakiin wax kale ma jireen xildhibaanadaas oo ka cabsada waxaa leeyahay mooshin xilka qaadis waxa ugu daran Xamse waxa weeye xilka qaadis mooshin xilka qaadis ma waa maqli karaba alla ninku jilicsana war ninka waa naceebay alla ninka uu naceebay ninkan xaga laga keenay war ninkan daarood ba maaha ninkan ogaadeen iska daayay daarood ba maaha ninkan ogaadeen waa la yaqaanay ragga adkaaya janamada haaye generaalada haaye siyaad bar la soo shaqeeyay Soomaalida sanka ka duleeyay isaaqan lafahan ay wataan waxa weeye dhawarka u suray ayay ahaayeen rag la yaqaanay ahaayeen ogaadeen ma boqo daaroodka kalena warkiiba daa laakiin ninkan meesha laga keenay ilma adeeryaalo waliba dadka baaritaanka ku fiican waan garanaynaaye waa Mareyxaan iyo Majeerteene ilma adeeryaalo ninka la soo baaro waa iga dhab arinta dhab iga tahay ninka hana loo soo baaro ogaadeen maaha daarood maaha ninka hana soo baaro alla ninku jilicsana oo ninku fulaysana oo ninku nacasana oo ninku xuma war ninka noo soo baaro ogaadeen haddaan nahay waa naga codsi ninka hana loo soo baaro wari xaal safarkii Laascaanood Xamse uu ku tagi lahaa waa la baajiyay waa baaqday sida hadda uu boqdo waa baaqday guddigii hordhaca wahaana ee safarkiisa hordhaca waftigii hordhaca wahaana waxaa la yiri jooga ma bixi kartaan baa la yiri isagana xafiiska intii loogu tagay baa dhagax laga cunay oo la yiri ade joog baa la yiri meesha tagin daraayan darada intii leed
سكستبا حمزة بوقشدي سلاس عارض وحبا مسو كرديين ومسو كردين لها مجرو لكن إساقا السمعات أوهي إساقا الشرف أوهي دول ما أنتو تغي أو دارو دوليه مجرو سو حملو فدي وقتي كاكنا ماضي إساقا مركا شرف أوهي إلا سعارض وطغو جرين دي شرف بكوهل لها يتاقيرو كوهل لها هديسي أي حلبانا يرو المتنات بلاهين وندل هيسانين أو قرعيا أو جوغا حمر قرعيا وبالدي كان نيبان دتيسي لا سocodين haday dhaheen ma dhaqaaqi kartid ama ma tagi kartid loo hanjabay waa ayaan daro inta leeg taasina waa safarkii Xamza Cabdi Barre wixii ka soo kordhana way weegi doonaa hadoo Allaah